diyaaraddii ugu horraysay aan cidna duulin awoodina karaysa inay gaadho raadeerada sheekada diyaaradda aan duuliyaha lahayn uu turkigu soo saaraya taasoo awood u yeelan doonta inay gaadho nidaamyada difaaca cirka isla markaana iskaashi la samaysa diyaaradaha qumaatiga u duula warshadaha militariga turkiga ayaa ku howlan horumarinta diyaaradaha duuliye la'aanta ee qumaatiga u kacdo sida D-21 iyo MMU diyaaradda noocan ee aadka u horumarsan waxay awood u yeelan doontaa inay isbeddel weyn ku samayso awoodaha diyaaradaha dagaalka ee turkiga sidoo kale waxay guul istiraatiijiyadeed oo weyn u noqon doontaa ciidanka cirka ee turkiga ayaa hadda wada dardargelinta dadaalo lagu doonaya gaarsiinta xawaaraha diyaaradda cusub 1.4 meej ama qiyaas dhan 1600 kilomitir saacaddiiba culayska diyaaraddan ayaa ka yaraan doona 100 kilogaram iyadoo yeelan doonta raadeero awood u leh aragti iyo ogaansho sida diyaaradaha waaweyn diyaaradda cusub waxay awood u yeelan doontaa inay gaadho nidaamyada difaaca ee ku raad joog iyadoo isu muujinaysa diyaarad kale sidaasi awgeed waxaa loo isticmaali doonaa in lagu jahawareeriyo nidaamka difaaca ee ka soo horjeeda inta lagu guda jiro dagaalka si ay u soo kiciyaan nidaamyadooda difaaca goor hore kadibna ay gantaaladooda ugu beerdareeyaan meel khaldan arrinta la yaab kale ayaa ah inay awood u yeelan doonto inay ku duusho sare kac dhan 90 fiid oo u dhiganta 27,000 oo mitir